السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتا waxaan rabaa inaan maanta idinku sii kordhiyo tirikadii noo socday sida caadiga ahayd kanoo ah tirikigii ugu dambeeyey ee whatsappka ku saabsanaa casharkan oo casharkii ugu dambeeyay aan whatsappkan ka diyaarino. casharkan waxa weeye oo waxyaalo ku saabsan whatsappka. hadda marka horeys waxaan ka bilaabaynaa waxaan ku dhufanaynaa settinga markaan ku dhufanay waxaan galaynaa meesha ay ku qoran tahay account markaan ku dhufano waxaan sii galaynaa meesha ay ku qoran tahay privacy. shalay waxaan kasoo hadalnay last scene sida macnaha tan waan kasoo hadalnay, profileka waan kasoo hadalnay, statement waan kasoo hadalnay. maanta waxaan kasoo rabnaa meeshan ay tigtu saaran tahay waa read privacy inaan ka qaado. yacni meesha waxa weeye qof baa fariin u diraysaa fariin ama qof baa yacni fariin kuu soo diray fariintii markaa qofka u dirtay waxaa saarantay tig buluugaa saaran tahay. tigtaa waxaa caddaynaysa qofkii inuu arkay, laakiin adiga waxaa jirta hadda sida wiilkan oo kale fariin buu iisoo diray. fariintan waa arkay ana fariin baan u dirayaa markaas yacni fariintii buluuga ahayd ima soo saarmayso, laakiin qofkii wuu arkay wixii. wakaas soma aragtaan qof baa ila soo hadlay fariintii buluuga ahayd ima saarna. intaa waxaa kaloo kusii darayaa waxaan rabaa inaa i tuso iyadana sida loo bedelo kaladhaha, yacni kalarkan oo kale hadda ii saaran waa aragtaan greenka ah qaabkee looga dhigtaa. waxaad ku dhufanaysaa halkaasaad ku dhufanaysaa waxaa kuu soo baxaysaa wallpaper kalarkaasi baad ka dhiganaysaa. haddee waxaan gelayaa galerigii gelayaa waxaan rabaa inaan kalarka aan rabo ka dhigto waxaan ka dhiganayaa kalarkan aan ka dhiganayaa markaas set baan leeyahay waa kalarkaas isu bedelay. waxaad kaloo ka samayn kartaa haddana meel kale aad jirto haddana kalarada laga bedelo sida solid color waxaanoo kale kalarka halkaa ka dhigan kartaa. kanaan rabaa hadda inaan ka dhigto isna kaa waa ka dhigtay. waxaan rabaa inaan kaloo kusii daro qaabka loo sameeyo groupka inta badan dadka way yaqaaniin, waa iska easy, waa qof kasta u yaqaana sida groupka loo sameeyo, taas waa easy. laakiin waxaan rabaa inaan groupka markaan galo sameeyo inaan sharo yar kasii diyaariyo oo ku saabsan groupka dhexdiisa inta badan laisku wareero sida qaabka linki qof inta badan sida linkiga meesha laga sameeyo oo shay ama group ama shay ama laga dhigto. haddii waxaan sameynaya group intaanaan sameyn rabaa markaa magac cusub baan ku qoranayaa. magac cusub ayaan ku qoranayaa. waxaan tusaale idin kusoo qaadayaa groupka waan sameeyey group waan sameeyey. markaan waxaan rabaa inaan idin tuso groupka waxaan ka hayaa anigu admin baan ka ahay waa aragtaan. marka waxaan rabaa inaan tuso sida groupka markaa groupka aragtid linkiisa qaadatid groupka ku jirta linkiisa qofaa aragtid inaad ku dartid oo kale meeshaasaad kusii dhufanaysaa activity invite iyo group link baad kusii dhufanaysaa. linkigaad soo copy garanaysaa markaa share ama copy ama share markaa share aad ku dhufanaysaa. share markaa qofka aragtid baa u diraysaa linkigii oo aad si groupka usoo galo. la markaas aan u dirayaa linkiga groupkiisa markaa linkigaan sameeyo wakaa qofkaasaan u dirayaa. casharkaasuna wuxuu ahaa casharkii ugu dambeeyey oo ku saabsanaa wakaa qofkii aan share dhahay. casharku waa casharkii ugu dambeeyey ka faa'iidaysta subscribe linka la ilaawin. qofkii waxba ka fahmin commentiga ha nala soo xiriiro insha allah. بالله التوفيق.